maalin wanaagsan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee shaah iyo sheeko. qaybtan labaad ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa buug anoo si gaara buug ka mid ah oo xusi doona. toddobaadkii hore waxaa iigu deeqay buug dhan konton buug nin aan saaxiibanaha aqoon-yahana waddankan ku nool magaciisuna yahay Mustafa Nuur. Mustafa iguma deeqin buug keliya, wuxuu iigu deeqay qalabkan warbaahinta sidoo kale. haddaba buugtii uu iigu deeqay Mustafa ayaa waxay ka koobnaayeen maadooyin kala duwan, hadday tahay kuwa ka hadlaya taariikhda Soomaalida, siyaasad iyo siyaasadaba. sidoo kale waxaa ku jira buug ka hadlaysa siyaasaddan caalamka ama taariikhda caalamka iyo sheekooyinkan ama aragtiyadan ama kuwa diinta ka hadlaya. Soomaad arag buugtu waa buug runtii midba mid ka qiimo badan yahay. hadda waxaan si gaara u soo xusay buug dhan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buug baan soo xusay oo buugta ka mid ah. 10 kuba midba mid waa ka cajaa'ibsan yahay, midba mid waa ka qaalisan yahay. si guud baan waxaan rabaa inaan laba ka mid ah buugta aan si gaara u fiirsho. Soomaaliya marka buugga ugu horeeya aan xusayo waxa uu buug aan barnaamijyo hore aan duubay aan meelo ka soo qaatay la xiriira sirdoonkii Soomaalida. waa buug uu qoray, waa buug la yiraahdo taariikhda Soomaalida. waxaa qoray Allah u naxariistee Jaamac Maxamed Qaalib, buugga wada garanaysaan. meelo ka xusan sirdoonkii xilligii lixdameeyadii baan buuggan ka xusay, barnaamijyo hore aan u sameeyey. buugga labaad waa buugga naxwaha Soomaaliga oo la qoray af Soomaaliga. waxaa la qoray 1905 waxaa qoray nin la yiraahdo John William. buuggan waa buugga aan rabo inaan sida gaarka u dul istaago. xilligaas wuxuu yimid dhulkii la oran jiray British Protectorate Somaliland. markuu yimid waxaa ku xusan naxwaha Soomaaliga uu baarayay, wax ka qoraya. waxaa ku xusan inuu adeegsanayo farta Soomaaliga la yiraahdo fartan maanta aan wax ku qornaa, walow ay xarfaha uu sida uu u dhigayo ay kala duwan yihiin. waa buug naxwaha ka hadlaya af Soomaaliga. qaybta ugu dambaysa haddaba cajaa'ib ah. qaybta ugu dambaysa wuxuu ku xusayaa laba reer oo reeraha Soomaalida ka mid ah. waa reerkan la yiraahdo Yibirta iyo Madhibaanka. marka wuxuu leeyahay lahjad gooni ah bay leeyihiin. lahjadii buu marka xusayaa. waxa cajaa'ibka waxa weeye marka xusayo waxay leeyihiin waxaan kuu sheegaynaa hala wadaagin Soomaalida moogta, ma rabno inay ogaato. marka way dhaarinayaan. markay dhaariyaan wuxuu sheegayaa inuusan la wadaagi doonin. buugga markuu ku qoray haddaba erayada iyo siday erayada badan buu ka qodayaa, sheekooyin ay leeyihiin buu qorayaa. markuu buugga qoray kadib wuxuu ku qorayaa qoraalkan sida aan ka soo ballan qaaday, ma raba inay Soomaalidu akhriso ama loo gudbiyo Soomaalida. haddana waa buugga waka qof walba waa hayaa. ayagu waxay ku doodayaan buu yiri marka ma rabno inay ogaadaan markaan ka hadlayno, sir bay noo tahayo. Soomaad arag waxaan soo xasuustay marka dhacdo waagaan ardayga 1987 yar aan saaxiib nahayn, hadda Mareykanku ku nool yahay, ardadayda ka mid ahaa. maalin wuxuu igu yiri afkaanaan ku barahayaa moogta. marka afuureen baa la yiraahdaa u gaara. marka wuxuu yiri waxyaabaha uu barahayay maalinta waxa ka mid ahaa yarka ninkaan sheegay magaciisa waxa la yiraahdaa Cabdiwahaab Axmed Karaani baa la yiraahdaa. wuxuu ku nool yahay Mareykanka. marka waxaan ka xasuustaa iftiimo ma kugu duran tahay oo kale. markaasaan yiri waa maxay? wuxuu yiri waa lacag ma haysataa moogta, lacag ma haysaa. marka lacagta iftiima la yiraahdaa. buuggan markaan furay ma garanaysaa lahjada Yibirta iyo tan Madhibaankaba lacagta iftiimay leeyihiin. qoraagu wuxuu leeyahay labadoodu way sii kala duwan yihiin. kan Yibirtu waa
afka lahjada yibirtu way urursan tahay wayna ka culays yar tahay buu leeyahay tan madhibaanka moogta tan madhibaanka eraya badan furfuranna sida uu ku sheegayo waayo hal waxaa laga yaabaa buu yiri sida waxyaabaha ka soo jeeda dhirta geedka caleenta ba in hal magac ugu wada yeerayaan waxyaabaha ka imaanaya roobka cirka inay hal eray u adeegsan halkii eray uu noqon karo dhowr macno uu samayn karo moogta marka taasoo xadidaysa lahjad ahaan erayga iftiim oo kale oo lacagta ah mar lacag bay noqonaysaa mar iftiinkay noqonaysaa mar qoraxday noqonaysaa marba waxbay u kacaysaa marka sibay u urursan tahay aniga wuxuu leeyahay qof walba akhriyaysan faafin hadaba buugal ninka qoray sidaas ku qorayaa oo Soomaalida yaa la wadaagay marka inta ka badan buuga ina heshaan baa idinka fiican ballanta in la oofiyo oo aan cidna la wadaagin si guud baan u dulmaraya laakiin erayadoo dhan meeshay ku jiraan waa buugaas labaad buuga saddexaad waa buuga uu qoraa Cabdulqaadir Shire Faarax Moogta madxafkii cadaabka waa akhrisay baan jeclahay waa buug dhacdooyinkii dhacay oo maaragtay tacdiyadii dadka Soomaalidu isku geyseen ama loo geysayba ama maamul ha ahaato ama qabaa'il ha ahaato buu xusayaa weliba mar aan sheekaysana Cabdulqaadir wuxuu yiri intaan buuga soo saaray kadib intaas oo dhacdo aanan ku xusnayn baa la ila soo wadaagay Moogta marka nabarro aad u badan baa ku yaala oo Soomaalida dhex maray kuwa aan la xusin oo badanna markaan buuga soo saaray kadib la ila soo xiriiray buu yiri buuga kale oo buugta iga soo gaaray aqoon-yahan Mustafa Nuur baa waxay ka mid tahay buugan la yiraahdo Kalahaadkii Muqdisho oo uu turjumay Boodhar Warsamo saaxiibkay waxaana qoray Yuusuf Maxamed Xayd buugan anigu weli ma akhrin waxaan idinka sheegi karaa mare laakiin waa buugta aan u hanweynaa inaan akhriyo waxna ka ogaado intiina akhriso waad la socotaan laakiin markaan akhriyaan idin la wadaagaya buugga kale oo buugta iga soo gaartay aqoon-yahan Mustafa Nuur waxaa ka mid ah buuggan oo laga qoray halgankii South Africa ma garanaysa waxa la yiraahdaa The Spirit of Freedom baa la yiraahdaa wuxuu ka hadlayaa dadkii hogaankii diinta iyo siyaasadda ee waddanka South Africa Soomaad arag halgankoodii uu ka hadlayaa buuggan asna waxaa qoray nin oday oo qaali ah soo jeedid waxa la yiraahdaa qaran iyo qabiil Rashiid Sheekh Cabdullaahi Garweyne qoray London aan isla joogno odayaasha aan wax badan oo taariikhda aan ka dhaxlay ka mid tahay sheekaysanay wali ma akhrin buugan asagana Rashiid aad baan Mustafa uga mahadcelinahay inuu ii keenay markii ugu horeysay marka inaan akhriyaan raba buugga kale waa buug qaali asaguna nin oday ah oo qoray Rashiid Garweyne la yiraahdo buuggan kale waa buug ka hadlaya sidee baarlamaanka wax looga bedeli karaa ama loo hagaajin karaa oo ka hadlaya waxa la yiraahdaa Code of Conduct waa buug laga hadlayo baarlamaanka hadduu ka hadlayo waa wax cad weeye see sharciga loogu socon karaa ama loogu dhaqmi karaa Soomaalida waa buug sharci ka hadlaya sharci baarlamaanka waliba hawl maalmeedka baarlamaanka buuggan ninaan saaxiibnaha qoray Cabdiraxmaan Maxamed Abdidoon buugtan akhriyo ka mid yahay buuggan waxa la yiraahdaa taariikh magaciisa waa 1969 baa la yiraahdaa waa buug ka hadlaya hal sano wax dhacay Soomaalidu markay ka hadlayso taariikhda markay ka hadlayso 1969kii waxaa la sheegaa inqilaab inuu dhacay kaliya Soomaalida laakiin buuggan taariikho waaweyn oo dhacay baa ku xusan sanadka kaliya Soomaalida kuwaasoo la oran karo waxay horseed u ahaayeen
in ku-caanka waddanku la wareego. Wuxuu sii tilmaamayaa kadib 69kii kadib si uu noo fahansiiyey 69kii wixii dhacayna wuxuu kasoo bilaabayaa 60kii ka hor ama xilligii magaranaysa daakhiliyada. marka qoraagu waa buug aad taariikh mudan inaad wax ka ogaatid baa ku xusan. waa buug aan aad u jeclahay. Mustafa Nuur buugta uu ii keenay waxaa ka mid ah dastuurkii waddanka mugta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sharcigeedii. sharciga Soomaaliya oo dhan intaas weeye aad u jeedaan. waa buugga wey yarka ah. haddana intaas yarka ah intaa yarta sharciga intaa ku xusan waana lagu dhaqmi waayey waana la baran waayey mugta. qofna ma yaqaan waxa halkaa ku qoran. kuwa fadhiya baarlamaanka ka dhiga Allah ka dhigo. aqoontuna ma ahan kaliya inaad sharciga xafidsan tahay. aqoontu waa fulinta iyo ku dhaqanka. Soomaad arag wixii ay qorteen ay ku heshiiyeen baa la fulin lahay. buuggan asna wuxuu ka hadlayaa hoggaanka leadership uu ka hadlayaa. waxaa qoray Henry Kissinger. waa buug marka istiraatiijiyadda laga hadlayo hoggaanka iyo siyaasadda aad loo akhriyo. Soomaad arag Mustafa waxa uu dhaamay male. buugga ugu dambeeya 10 buug aan halkan ku soo bandhigay waa buug uu qoray nin sheekha aqoonyahana saaxiib aan nahay la yiraahdo Xuseen Shukri. sheekh Xuseen Shukri baa la yiraahdaa. buugga magaciisa waxa la muusiga iyo muslimiintii hore. maxay diintu ka qabtaa muslimka. buuggan marka waxaan ku jeclay waan akhriyay. qoraal la waan ka diyaarshay waa hore markii uu soo gaaray 2023. waxaan ku jeclahay sheekhu wuxuu xusahayaa taariikhda muusiga Soomaad arag. sida uu daliishanayo oo kutub badanna uu xusahayo. kitaab walba iyo daliil walba uu adeegsanayo kutubta ama ahadiista uu ka soo qaato xusahayaa kuwa daciifka kuwa aan ahayn. waxa uu muujinayo waxaan ku jeclay waxa weeye muusigoo kale markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay dhawaqa muusiga Soomaad arag waa codadka uu Ilaahay abuuray kuwa kamid ah mugta. shimbirta markay dhawaaqayso qaar kamid ah dhawaaqyada shimbiraha dhagahu waa ku raaxaysanayaan mugta. Soomaad arag marka codadka Ilaahay sameeyay qaar kamid ah inay markaad maqashid ba aad ku jirro colaysid aad diidaysid baa dhacaysa. qaar kamid ah markaad maqashid in aad ku degaysid baa dhacaysa mugta. marka codadka ama dhawaaqa muusiga ka baxaya ama kan ka imaanaya markaad dhul beera ah geeda ah kayna aad maraysid oo laamuhu hawada ay ku dhacayso. Soomaad arag dhawaqa ka imaanaya ama shimbiraha cirka marayo duulahay midba nooca tahay ama ma aragtay jidhaamaha biyaha markaad tagtid codadka raha iyo marka dhawaqyada noocaas marka dhawaq xaaraana malaha buu xusahayaa. Soomaad arag waxa xumaynaya heesaha iyo muusiga laga hadlayo waa miraha ay ka samaysan tahay wey. waxa kaloo xusahaya dhaqan xumada dadka qaadahaya ay la yimaadaan ayagu. laakiin miraha markay heesu la qaadahaya ama muusiga la adeegsanayo labaduba ay yihiin wax soo jiidanaya dhagaha iyo qalbiga oo wanaaga. wuxuu leeyahay waa wax la dhageysan karo waana wax u fiican. 10 buug baan halkan ku xusayaa. qaar sida aan idin sheegay aanan akhrin qaarna aan akhriyay. buug kaloo 40 ah taala. marka buugta waxaan oran lahaa sida uu uga la ballamay Mustafa Nuur wuxuu yiri waa inaad uga faa'iideysid waxaan kugu keenay inaad dadka uga faa'iideysid. marka waxaan jeclahay inaan qaar kamid ah akhriyo
waxyaabaha aan u arko inay bulshada Soomaaliyeed xilligan joogta muhiimka ay u tahay waa idin soo gudbinayaa. idinkuna waxaan leeyahay dhegays kula wadaaga saaxiibadiin dhegaysta barnaamijyada fidiya gaarsiiya una mahadceshi sidaan ugu mahadcelinayo wixii aan halkaa ka soo helo Mustafa u laabanaysa oo runtii aan abaal ugu hayo inuu ila wadaagay konton buug Soomaali arag. marka barnaamijka qaybtiisa labaad shaah iyo sheeko intaas ku soo gabagabeynayo waad mahadsantahay.